منبع الأخلاق نبراس الدجى فيه تبيان المعاني كل حين جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود بالفضائل نرتقي هام الوجود والوفاء يسطر العهد المتين من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan insha allahu tacaala aan qaadan doonaa darsigeena alxadaara alislaamiya ilbaxii islaamnimada iyo waxa weeyaan xadaaradii iyo ilbaxii waxa weeyaan islaamku lahaa xadaara marka la yidhaahdo waa shay aada u guda weyn oo aadna dee waxa weeyaan in looga warramo ay tahay wakti badanna u baahan laakiin waxaan kusoo koobaynaa un erayer yar iyo in yaroo waxa weeya ina tusinaysaba alxadaaradii maaratan islaamku iyo ilbaxii islaamku u soo maray ilbaxa islaamka marka la yidhaah waxaa laga waramayaa wakti islaamku uu hogaaminayey caalamka wakti islaamku uu hormuud u ahaa oo looga dambeeyey waxa weeye caalamka ilaa 1,000 sano wax ku dhow ayuu islaamku waxa weeyaan maamulayey oo waxa weeye uu ka talinayey adduunyada marka kunkaa sano wixii uu soo kordhiyey ee xadaara ah ee horumar ah ee waxa weeyaan dhaqana ee waxa weye uu soo kordhiyey dee haddii la yidhaaha laga sheekeeyo wakti badan ayay u baahan tahay xadaara marka la yidhahda kelimadan waxa weeyaan xadaara waxaa lagu fasiraa ama maaratan la odhan karaa waa kelima waxaa inta badan waxa weeye xadaara marka la yidhaahdo waxaa iskarab socda ama luga alcarabiya marka la yidhaah waxa weye xadaara 3 kelimo ayaa xadaarada ayaa loo isticmaala mar xadaara la yidhaah marna thaqaafa la yidhaah marna madaniya la yidhaahda intuba waxa weye waa isku midun dii thaqaafa la yidhah waa aqoonti waa ilbixin xadaarana waa saasoo kale madaniya waa remadaalkiiyo iyadana maaratan ilbixi islaamku waxa weeyaan u lahaa weyn marka kelimadan xadaara marka maaratan la yidhaah waxa weye waxa lagu fasiraa ama maaratan lagu soo koobaa waa in waa horumarka islaamku uu maaratan leeyahay waxa weeyaan waa kelima ku tusinaysa horumarka iyo waxa weeyaan xadaarada islaamku waxa weeyaan uu leeyahay wey waxaa markaa lagu fasiri karaa oo lagu fasiraa oo qaarkood ay maaratan yidhahdaan musطalaxeeda waa cibaara majmuucati min alqawaacid walmabaadi almunadamati lilmujtamaci tumathilu nataa'ij anshaat albashariy waa waxyaalo yani ku tusinaya horumarka islaamku uu ka sameeyey xagga caqaa'idka iyo xagga maarata mabaadida iyo waxa weeyaan xagga maamulka uu maamulayey mujtamaca maaratan uu maamulayey islaamka marka la yidhaahdo mabda'iisu de waxa weye ama xadaarada mabda'eedu waxa weye waxay ka bilaabanaysaa waa mabda oo ku abtirsanaya xadaara islaamiya islaamka ku abtirsanaya islaamkuna mabda'iisu waxa weye wuxuu ka yimid xagga rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu maaratan ka yimid ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ummaddan inay tahay ummadaha ta ugu khayr badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linaas ummadta ugu khayr badan baad noqoteen bu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala oo dadka waxa weye loo soo saaray waxaa kaloo tihiin ummad markhaati ah ama ummad dhexdhexaada marka maarata leega dhinac kasta wakadalika jacalnaakum ummatan wasada ummad dhexdhexaada ayaa la idinka yeelay
si aad markaa aad ugu markhaati kacdiin dee waxa weye maalinta qiyaame iyo adduunyadanba ummadaha aad ugu markhaati kacdiin marka waa risaaladan dadkii qaaday ee waxa weeye muslimiinta ahaa ee ugu horeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday haddii ay la yimaadaan arrimaha la doonayo inuu adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhiibayo wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard kama istakhlafa aladiina min qabli inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilahay u ballan qaaday qolada mu'miniinta ah ee waxa weeye camalka wanaagsan la timid inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaadada iyo maamulka adduunyadan inuu dhiibayo shay keliyun baa laga doonayaa yacbuduunanii walaa yushrikuun inay caabudaan ba ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala oyna ii shariig yeelin waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay caabudaan oyna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayna u shariig yeelin marka muslimiinta iyo islaamka mabda'iisii markaan egniya meeshuu ka bilowday wuxuu ka bilowday waxa weeye waa maka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam makuu ku dhashay makuu ku noolaa halkaasaa dacwada ayaa isaga oo 40 jir ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo diray markaa bacdigeed baa nebiga la dhibay oo maka lagu dhibay nebiga iyo asxaabtii lagu dhibay way hijroodeen meelo fara badan bay u hijroodeen laakiin markii dambe waxay iskugu yimaadeen madiina halkaa madiina ayaa waxay noqotay caasimadii islaamka ayay noqotay iyo muslimiinta caasimadoodii ay deganaayeen halkaa ayaa waxa weeyaan ay ka bilaabeen dowladdii islaamka iyo xadaaradii islaamka ayaa laga bilaabay waktigaa laga bilaabo 50 sano wax maaragtani waxa weeyaan ku dhow ayaa caalamulislaami ayuu wada gaadhay raayadii maaragtani islaamka ama caalamu maaragtani adduunyadao dhan ba ay wada gaadhay laga bilaabo min sbain laga bilaabo ama waxa weeyaan sbanishka ilaa waxa weeyaan shiina laga gaadho shiinaha laga gaadho ayaa waxa weeyaan islaamku ayuu maamulay oo waxa weeyaan islaamku umartays markaana waxba la odhan karaa adduunyada de intii la yaqaanay wey adduunyada intii la yaqaanay oo dhan buu islaamku wuxuu ku gaadhay muddo yar oo calankiisa uu waxa weeye ka babanayay oo calanka maaragtani islaamku ayuu wada gaadhay xadaarada islaamku haddaba muxuu soo kordhiyey islaamku markii ugu horreysayba ma soo kordhinin xadaaraat alcimraan in wax la camiro ama sanaacaad ama warshado ama wax dhiska ka maartay ma soo kordhin ama teknolojiyada iyo casriga ee islaamku markii ugu horreysay wuxuu soo kordhiyey xadaarada rasmiga ah xadaarada rasmiga waa xadaarada ku dhisan qiyam iyo caqiida maarta ku dhisan oo mabaadida maarata yani waxa weeyaan ku dhisan hadday caqiide tahay hadday fanni tahay haddii waxa xorriyad ay maarata ay tahay haddii ay tahay cibaada ay maarata yani tahay taa ku dhisan ayuu maarata yani keenay kolka waxyaalahan dee hadday xataa ay maali tahay haddii maadi tahay waxa weeyaan intaba islaamku maarata yani waxa weeye wuu keenay islaamku wuxuu keenay xadaara yani ku dhisan qiyamka iyo akhlaaqiyaadka ku dhisan oo caqiide ah oo cibaado ah oo manhaj yani waxa weeyaan ah ayuu maarataani keenay maxaa yeelay asalka islaamku uu u yimid waxa weeyi dadka inuu ka saaro dulmiga alif lam mim kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur ilahay wuxuu leeyay kitaabkan waxa loo soo dejiyey dadka in lagaga saaro dulmiga nolosha dulmiga dhaqanka dulmiyaalkaasoo dhan in maarata laga saaro nuurka waxa weeye loo saaro oo xayaata nuura iimaan iyo caqiida iyo waxa weye ku dhisan in waxa weeye loo saaro waxa uu keenay islaamku xadaara ku dhisan xoriya oo qofku inuu xor u yahay waxa weeyaan hadalkiisa iyo fikirkiisa uu waxa weeye u yahay cumar ibn khataab radi allahu canhu muxuu maarata cani lahaa istacbadtum annaas waqad waladatum ummuhum axraaran dadkii baad addoonsateen seed u addoonsateen dadka buu lahaa isaga oo hooyooyinkooda ay dhaleen iyaga oo xor ah marka xoriya ayuu maarata keenay xoriyada la sheegayana ma aha xoriya yani mutlaqa ee waa xoriya cibaadadii inuu maarata xor u ahaado inuu xor u ahaado fikirkiisa iyo maarata yani waxa weeyaan uu xor u ahaado iyada oo waxa weeye quyuud leh iyo shuruud maarata yani leh oo xoriyadu waxa weeye inuu qofku wax la wuxuu doona iska yidhaah maaha waxaa la jideeyey
qofku markuu hadlayo inuu eego hadalkani hadal wanaagsan inuu yahayna hadal xun yahay. ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leey maa yalfidu ilaa ladayhi raqiiban aayadii kuma hadlo bini aadamku shay kuma hadlo ilaa waxa weeyaan waxaa agtiisa ah raqiib iyo catiid, malagan baa maaratan iyo malaa'igtan ayaa ka qoraya. marka xoriya ayuu maaratan keenay oo waxa weeyaan xoru u yahay xagga caqiidadiisii, xaqii maaratan waxa weeyaan u yahay hadalkiisii, intaba xor maaratan u yahay, isaga oo waxa weeyaan quyuuda la eegayo oo wax mutlaqa aan maaratan ahayn oo waxa weeyaan ictibaar xagga sharciga loo eegayo wey. waxa ku tusinayana waa arintaas waxa islaamku uu keenay waxa weeyaan waxyaalo ku dhisan yani qiyam iyo akhlaaq wanaagsan ayuu islaamku ayuu maaratan keenay oo dadkan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala keligii ay caabudaan oo rabbi subxaanahu watacaala ay ku xidhnaadaan ayuu waxa weeyaan islaamku keenay. waana waadhii ay dadka maaratan ama ay wada gaarsiinayeen caalamka ay maaratan gaarsiinayeen dadki muslimiinta ahaa iyo waxa weeyaan madaxdii maaratan muslimiintu ay maaratan gaarsiinayeen wey ee ku tusinaysa. waana maalan weerihii waxa weeyaan ribciyi iyo waxa weye xudayfata ibnu nucmaan iyo mugiirata ibnu shucba weerihii ay maaratan yidhaahdeen oo waqtigii dagaalka ay ku qaadeen ama ay tageen faris ayaa waxa weeya ninkii farisiga ahaa ayaa loo sheegay inay ciidan halkaas soo degeen. dad buu diro bal maaratay ugu yeedha buu yiri. maalin maaratan waxa u tegey ricbiyi, maalinna waxa u tegey xudayfa, maalinna waxa u tegey mugiira. dhammaan maxay maaratan kolkaas ayuu sheegayey. wuxuu weydiiyey maxaa meeshan aad u timaadeen? dee waxaan idin arkayaa dad aan waxba haysan inaad tihiin, haddaad maaratan wax doonaysiin anaa idin siinaya, waxle waxaad doonaysiin oo dhan ayaan idin siinaya oo maaleed u baahan tihiin, maxaad maaratan waxa weeyaan aad doonaysiin? markaasa waxay yidhi anagu maal iyo waxba toona ma doonayna, waxaan doonaynaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad. addoommada inay is addoonsadaan ayaan ka saaraynaa, waxaanan u saaraynaa inay addoommadu ilaahay subxaanahu watacaala addoon u noqdaan. min dayqi اdunya ilaa sicatiha ilaa sicati alaakhira wa min jawri اladyaan ilaa cadli اlislaam. waxaan u nimid waxa weeyaan aan kugu nimid waxa weeyi inaan ka saarno addoommadu inay barhkood is addoonsadaan, inaan ka saarno adduunyadan ciriirigeeda iyo dhibaatada adduunyadan ay tahay sicatu aakhira iyo waasacada aakhiro aanu saarno ood aakhiro rumayso. jawrkan adyaanka iyo diimuhu ay leeyihiin inaan ka saarno oo islaamka cadaaladiisa iyo cadaaladda islaamka aan u saarno ayaan u nimid buu yidhi. marka xadaaradan islaamku waa xadaara ku dhisan xoriya, waa xadaara maaratan waxa weeyaan ixtiraamaysa qofka xaakimka iyo qofka maxkuumka labadaba. qofka xaakimka laga doonayo inuu maarata ixtiraamo, inuu waxa weye soo dhoweeyo, inuu la socdo qofka maaratan waxa weeyaan maxkuumka ah. xoriyadu xataa waxay noqonaysaa qofki inuu xor u yahay dee salaadiisi cibaadadiisi in maaratan xor u yahay. markin marka xoriya laleeyahay waa nadari lislaami in maaratan yahay ma aha, laakiin xor mutlaqa qofku wuxuu doono inuu iska yidhah, wuxuu doono maaratan sameeyo ma aha maaratan wey. islaamku wuxuu keenay nazca islaamiya ayuu maaratan keenay in waxa weeyaan islaamku uu noqdo caalami, shay caalamka oo dhan waxa weye maamula inuu maaratan noqdo. waxa uu keenay xadaara yani aan la kala saraynin oo waxa weeyaan mid kastaba uu ku siman yahay oo ayna jirin qolo keliya ama cunsur keliya ama qolo keliya oo waxa weeyaan inta dhan u talisa ama iyadu maaratan waxa weye tidhaahda anaa idinka sareeya. dhammaan biniaadamku wuu siman yahay, biniaadamku wuu siman yahay. jinsi laguma kala sareeyo, cunsiyad laguma kala sareeyo, wadan laguma kala sareeyo, midab laguma kala sareeyo, cirqi iyo wax lagu abtirsanaya laguma kala sareeyo. islaamku maaratan waxa weeyaan ama waxa weye biniaadamku waa mid keliya. ilaahay subxaanahu watacaala mabda'aasu keenay yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila. ilaahay subxaanahu watacala isagoo dadko dhan la hadlay uu leeyahy waxaan idinka abuurnay aadam iyo xawaa, ku lab iyo ku dhadig baa laydinka abuuray.
nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa fadla licarabiyin calaa cajamiy qof carabi ah kama fadli badna qof cajami ah qof maarata yani axmer oo cas ama maarata cadi kama fadli badna qof maarata yani madow islaamku wuxuu keenay in waxa weeyaan la sinaado wuxuu keenay inaan qofna qof kale una ka sarrayn maxaa yeele dhammaantood meel keliya ayay ka wada yimaadeen meel keliya ayaa maarata yaa laga wada laakiin waxaa lagu kala sarraynaya mabda keliya wey waxa weeye aayadda dhammaadka yaa ayuha aladiina yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa lagu kala sarreeya waa taqwada wey bini aadamkan wuxuu ku kala sarreeya ee ku kala marata yani waxa weeyaan taqwadaas iyo ilaahay subxaanahu watacaala baqida laga baqayo kaa keliya ayaa waxa weeyaan ayaa lagu kala sarreeya laakiin laguma kala sarreeyo mid kale islaamku maarata yani waxa weeyaan wuu siman yahay islaamku wuxuu keenay xadaarat lxuriya islaamku wuxuu keenay xadaara ixtiraamaysa qofka mabaadidiisa ayuu keenay xadaara wuxuu keenay islaamku ixtiraamaysa qofka maxaabiista ah haddii maxaabiista maarata la qabto inaan la dilayni waxa weeyaan oo maxaabiistii marka la qabtaan la dilayn xadaara wuxuu keenay ixtiraamaysa waxa weeye qofka mabaadidiisa oo xataa ilmihii yaraa iyo gaaladii marka maalan dagaal lagu qaado caruurtii iyo dadkii waaweynaa iyo dumarkii iyo midna maarata yani lama dilayo oo waxa weeye waa gaal uun loo dili maayo waa xadaara maarata yani ixtiraamaysa weyn xadaara islaamku wuxuu keenay fulinaysa ballamaha oo haddii dowladda islaamku ballan ay la gasho dowlad kale dee waxa weye ballantaas waa inay fuliso oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dee ballantii ugu adkayd ee maarata yani ula galay quraysh waa tahay mawaaciddii markii maarata yani xudaybiya nabigu calayhi salaatu wasalaam markii dee la hor joogsaday ee loo diiday inuu maka galo wuxuu la galay qodobo aad u adag oo saxaabaddu maarata yani waxa weye ay ka qayliyeen marka waxa weeyaan maslaxa haddii loo arka xataa adigaba dhib ha kugu ahaatee waxa weye waa la fulinaya maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira qodobadaas qofkii muslima ee yimaadeen muslimiinta u yimaadeen in la celiyo qofkii gaalahee ka taga muslimiinta ee gaalada u taga maarata inaan la soo celin xataa qaar baa yimid iyagoo silsiladoodii maarata yani wato muslimiina maa lay celinayaale markaasa haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam ballantii u galay darteed ayuu u celiyey marka ballamaha xataa waxa weeyaan adiga dhib ha kugu noqoto laakiin adoo maslaxa maarata yani u arkaya waxa weeyaan waad fulin kartaa marka waxa weye islaamku wuxuu keenay waa xadaara fulinaysa axkaamta iyo mawaacidda iyo ballamaha waxa weeyaan fulinaysa xadaara wuxuu keenay ixtiraamaysa dagaalka waktiga dagaalka ilaalinaysa akhlaaqda wanaagsan oo haddii dagaal lagu jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in la dilo caruurta yar in la dilo dumarkii in haddii qofka xataa la dilo la jidilo oo waxa weeya ama dhegihiisi iyo indhihiisi iyo lugihiisi iyo waxa maarata jidilin maarata in lagu sameeyo waxa weeyaan ayuu islaamku ayuu diiday wuxuu keenay xadaara yani ilaalinaysa qofka waxa weeyaan ilaalinaysa weyn xadaarada islaamku waxa weeyaan uu keenay waa xadaara ku dhisan cilmi iyo qiyam iyo waxa weye iyo ku dhisan aqoon maaratan weye oo aqoon ku dhisan oo waxyi rabbi subxaanahu watacaala ayay ku dhisantahay ku abtirsanaysaa markaasaa adduunyadoo dhan ay ku maamulaysaa yani xadaaradaas iyo maarata yani iyo ka ayay ku maamulaysaa iyo dhaqanka wanaagsan ayay ku maamulaysaa xadaara waxa weeye yani daraasaynaysaa ummadihii hore markay daraasaysa bacdigeedna waxna ku siyaadinaysa aya waxa weeyaan xadaarada islaamku waxay ka koobantaha waa laba keliya taasaan kusoo koobaynaa waxa weeyaan waa qiyamka islaamka iyo insaaniyadda iyo dadnimada in la ilaaliyo ayay ku kooban tahay oo xadaaradu ay maarata yani tahay ilaahay subxaanahu watacaala hayno ilaahay subxaanahu watacaala yaan weydiisanaynaa inaan waxaan maarata yani asiibnay naga abaalmariyo waxaan dhafnayna ilahay subxana naga dhaafo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halkaa inoogu joogo منبع الأخلاق نبراس الدجى فيه تبيان المعاني كل حين جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين زنه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود بالفضائل
يسقي هام الوجود، والوفاء يسطر العهد المتين. من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول